inta xirfad aad garanayso ayaa ku horseedi doonto inaad ka maaranto inaad meel aadan u qalmin joogto inta wanaag aad beerato waxay ku noqon doontaa difaac goortii aad maqan tahay waajibka alla ku saaray haddaad si wanaagsan u gudato waxaad heli doontaa wax waliba aad u baahan tahay helidooda hanti badan inaad lahaato oo aadan lahayn wanaag lagugu asteeyo waxaa ka wanaagsan wax u dhow wanaag inaad beerato ixtiraamaad qof u muujiso waxa uu u dhigmaa inaad naftaadu u hurtay lebinta kamadaada qofka u dagaalama waxay ka fogaataa nacaska dabka soo gaadha kadibna quusta jaceylka ha ku baro dulqaadka dhaawacna ka baro cashar noloshu waxaa ugu qurux badan ugana muga weyn casharka aad ka barato guuldarada dal walboo horumar tiigsanayo waa mid ku adag dhaqankiisa iyo rumaysnaanta afkaarta dadyowgiisa beentu waxay ka qaraar tahay sibirka halka runtii ay ka macaan tahay malabka run sheegidda rabbi baa inagu jeclaan beentuna waxaan ku mutaysan cadaab cilmiga waxtarka waa mid ilayskiisa uu laabta ku faafo qalbigana daboolka saaran ka qaada aqoontu waxaa ugu wanaagsan midda alla cabsiga uu la socdo eegmada ay dadku ku soo eegayaan waxaad isku dhaafisaa inuu alla kuu jeedo inay xaggaaga u jeedaanna waxaad kaga gudubtaa inuu alla kuu jeedo oo uusan kaa dheereen haddii ay laba arrimood isaga kaadarsamaan waxaad eegtaa midka naftaada ku culus kadibna ku dhaqaaq waayo wixii xaq ah oo keliya ayaa nafta ku culus markay noloshaadu ugu adag tahay waa markaad adiga mushkilad isku noqoto fashilku wuxuu macno buuxa yeeshaa markaad samayso rogaal celin qofka ha ku jeclaan hanti iyo qurux jaceylka dhabta ah waa ruuxa aad jeclaato qalbigiisa ay ku qaniinay inaad qaniinto waxba kuu soo kordhin mayso dadka qaarkiina waa sida oo kale ma mudna inaad u jawaabto hadallada qaarkood ay ku yidhaahdaan waxaad qabato waxaad sheegto waxaad ku dhaqanto waxaad ku fekerto iyo waxaad samayso intuba waa kuwa dib kugu soo laaban doona wanaaji qofnimadaada si ay kugu wanaagsanaadaan waxa kugu soo laaban doona kelmadda wanaagsan uu qofka kugula hadlo waxay u dhigantaa ruux ku soo baxshay ruuxdiisa kadibna gacanta kuu saaray saamaynta ugu wanaagsan aad dunida kaga tagi karta ayaa ah inaad ka tagto wax dhaxalgal ah dadkana anfaca caqliga oo aan si wanaagsan u adeegsano wax soo saarkiisa wax uu noqdaa mid la mahdiyo haddii aanu waqti waxba uusan ku barin gebi ahaanba nolosha waxba kuma baran doontid ilaa aad ogaato waxa uu yahay waqtiga haddii aanu fikirkaagu ku barin waaqica dhabta ah ee jira kuma bari doonto doqonnimadaada waayaha dhabta ah baasaboorka aad dunida dhan ku gali karto waa dhaqankaada oo wanaagsanaada habdhaqankaada wanaaji si qofnimadaada u wanaagsanaato qofka noloshaada si been aad ugu soo biiriday isagoo wax waliba sida baa kuugu sameeyo waxaad dareemi doontaa goortii noloshaada soo afjarto beenta aad dabin kaga dhigtay qiimaha uu qofka ku siiyo had iyo jeer waxaad ugu beddeshaa mid la mid ah qof waliba waqtigiisa kuma siin doono ilaa qof si niyad kuu danaynaya mooye jecelna horuu socodkaaga qof walba waxa uu kaala hadlaa wax uu aaminsan yahay keliya inay saxan yihiin laakiin aaminsanaanta dhabta aad meel ku gaadhayso ayaa ah wax adigu aad aaminto ugu dambeyn qofka qaladka kaa gala kadibna dib kugu soo laabta kaana raaligeliya qaladka uu kaa galay waa hubaal qofkaasi inuu ku jecel yahay uu diidayo inaad kala fogaataan